magaceeda saddexana waxaa la nimca Umar Sheekh Allah waa tahay marka daadaadu waa imisa nimco 24 sano jira 24 jir baa tahay waa tahay dadka qaarkood waxay daadaada ku sheegayaan ilaa 19 sano ma jiraan 24 sano jira waa tahay magaciisa ninkaasi wiilkaad u dhashay magaciisa runta Siiso Joshua Allah Siiso Joshua waa tahay marka daadiisa imisaad ku qiyaasi kartaa adiguna aniga daadiisa ma qiyaasi karo adiga daada aabbaha kale ahaa company xoogaa jir waa hagaag haddaba haddii aan ku weydiiyo nimco sidee ku bilaabatay xiriirka adiga iyo ninkan idin dhex maray xiriirka wuxuu ku bilaabay nin dhakhtarka aabbaha ahaa wuxuuna yiri maxaa la haddii aad rabtid inaad ku daaweeyo aabbaha anaa isbitaalka ku jirno in maxaa la aad ku guursado waa tahay marka ma isbitaalku madax ka ahaa mise ciidamada isbitaalka joogu ahaa mise dhakhaatiirtu ahaa mise kalkaaliyuu ahaa horta ninku marka hore muxuu ahaa aniga ciidamada ma kala aqoon xili markaasi toolo qof mashquulsan ahaa laakiin sidoo asiga uu sheegay nin oo madax u ahaa oo islaamayo ahaa waa tahay marka markii ugu horreyseed isbarateen xaggay ahayd yaa kula joogay maxaanad ku wada hadasheen aniga isbuuc camal ku jirno oo ninkan wuxuu yidhi maxaa la daawada intuu isii warqad orod suuqa bakaaraha ka doon suuqa bakaaraha markaa daawada ka doon waxaa la muqdisho dhan ma taalo soomaaliya dhan ma taalo daawadaas hadday taalana waxaa la gadaa $150 ma laga helo daawada markaa usoo noqday oon dhahay daawada ma laga helo soomaaliya waa ogaayu yiri daawadaas inaan laga helin soomaaliya ees oolin marka saa inaa aragtidaan kugu diray markaan dhahay warqada waa laigu dili gaarin nimanka al-shabaabka ah igu dili gaarin maxaa igu dirtay markaan dhahayna wuxuu yiri inaa kusoo tusaale qaadatidaan rabay ani warqada aragtid daawada aabbahaba ayay maadaama uu xanuunsanayay waxaa la yidhi daawadan waa tii bogsiin lahayd isaga daawada kansarka eed marka daawada magaceedii ma xasuusataa warqadda wuxuu kugu qoray ani ma xasuusta ani mana aqoon u maliyi daawadaas magaceeda waa tahay markaad ka soo weyday suuqii bakaaraha isagaad ku soo noqotay wuxuu ku yidhi waan ogaayay aanad ka noqday asigan dib ugu soo noqday asi markaa kusoo noqdan wuxuu yidhi waa ogaayu yiri inay daawadan oolin soomaaliya marka wuxuu yidhi daawadan waa hayaa yiri laakiin haddaa ku siinaa waa shuruudu yiri markaa shuruuddaas agsoo dhexdaan ku siinaa markaa dhahay shuruudda maxaa waan wuxuu yiri waxaa rabaa yiri inaan ku guursado markaa ku guursadaan daawadaas ku siinaa yiri aabbaha siinaa markaa guri ka diidana wuxuu ii qoro warqad oo maxaa la nalagu bixinaayo saacadaha oo markaa soo socda oo nalagu bixinaayo banaanka nalagu bixinaayo waa tahay markuu ku leeyahay waxaan doonayaa inaan ku guursado ma aabbaha hortiisuu kugula hadlayay mise meel gaaraa tagteen maya meesha oo dadka oo dhiigga uga cabiro oo xasiiskiisa ah waa tahay maxaad isku fahmayseen markaaad luqadeed ku wada hadlayseen waxaa jooga wiil soomaali oo turjubaana dabeetana waxaa tiri warqad baa lasoo saaray aabbaha isbitaalka looga saarayo warqadii aa nala siiyey warqadii markii nala siiyey wiilka turjubaanka wuxuu yidhi maxaa la dhahaa ka fiirsa hadalkan ninkaas wuxuu ku leeyahay iska yeel aabbaha bixinin markii dambena waa ogolaada ani marka inaad ogolaato ma wiilka turjubaankuna qalqaal uu ku geliyey si aabbahaan laguu saarin in ninkan aad guursato waa tahay marka maxaa dhacay markii oo aan yeelay oo ninkiinaan guursada aa yeelay daawooyin badan oo aabba siiye wuxuu u sameeyey baasboor oo lagu soo qaadayo guurkiinu siduu u dhacay bal arrintaasaan doonaya inaan ogaado siduu u dhacay guurku wuxuu u dhacay ninka oo turjubaanka ahaa wuxuu keenay 2 nin oo maxaa la dhahaa soomaali ah wuxuu yiri aniga muslimna ahay waana guursanaa diinta islaamka ku guursanaa xataa wuxuu yaqaanaa qur-aanku yaqaanaa markii aan dhahno qur-aanka u aqrinaayana marna ku aqrinaya marna ma aqrinaayo waa tahay xaggee lagugu meheriyay adigu meeshu waxaa tiri waa meel ciidan waana isbitaal meel ciidan oo isbitaal ah waaye meesha teendooyinka lagu meheriyay marka meherka adiga markii lagu meherinayo labada wadaad iyo ma ag fadhiday waa ag fadhiyay marka raalli baad ka ahayd raalliyaa ka ahaan waa tahay aabbaha iyo faamilkiinu ma kula ogaayeen maya lama ogeen familkeena maxaa yeele ani aabbe intuu dhal anaa uweyn anigaa go-aankas iska gaaray si uga hela aabba daawadiisa helitaankiisa kasokow adigu soo gabar ma tiidoo soo xitaa sharcigii muu ahayn in lagu bixiyo ama haddaanu aabahaa joogin adeerada ama qof walaayadaada haya inuu bixiyo soo may ahayn way ahayd laakiin ayaka ninka turjubaanka iyo nimanka oo meherka sameynaya waxay dhaheen haddaa guur hore usoo martay oo ku mehersantaa ninkan marka horaad sheegaa guur hore ma usoo martay hayaan dhaha guur hore usoo maray marka guurkaagii hore imisuu qaatay caruurna ma ku dhashay lee wiil marka teendadii baa lagugu dhex meheriyey teendada lagu dhex meheriyey ku dhamaadaan daawooyin fiican oo aabba siiyey iyo maxaa la dhahaa
si fiican ugu dadaalay. waa tahay marka intaanan dawada gaadhin meherkaasi markuu dhacay dareenkaagu siduu ahaa? ani dareenkay ma ku faraxsaneen, waxa ii geysay waxa waaye daawada keliya la aabo rabitaankiisa. marka ma aroor ninka ma ku faraxsaneen? ma aroor baa lagu meheriyay? qofaad taqaanidaa ku faraxsantaa. ma aroor baa lagu meheriyey mise galab? galabaa la meheriyey. dabeete maxaa dhacay markaa? maxamed waa lagu meheriyey la bis nimanka wadaadada lacag siiyeen uu siiyey asi iyo ninka turjuwaanka ah sidee ku bax. marka adigu ninka security oo meesha ka shaqeeyo waxay dhaheen maxaa la dhahaa arrimaa jirta aan maqalnay inta security ay wax iweydiin su'aal iweydiin asaa imaado fiir wixii lagu weydiiyey waxba kama jiraan dheh. waa tahay marka meesha lagugu meheriyey wadaadada iska baxeen lacagtooda qaateen adigu ma ninkii lagugu meheriyaad la hadhay ood la joogtay? ma meherka markuu dhaca hore ninka liiga tegin ani waxaa ku noqda aabaa ku noqda beriid kasoo ka dambeysay waa marka ii wacwaxaay. marka wicitaankii maalmaha ka dambeeyaad kulanteen? imse jeer sidaad u kulmi jirteen ninka marka ma meeshuu degan yahay baad la degtay mise kolba xeradu joogay iyo meesha isbitaalkaad ugu iman jirtay? meesha taandhada oo daawada uu ku bixinaayo oo daawada markay cidlo ay noqotay iwici jiray uu dhihi jiray imaaw. waa tahay habeenka aan diida oo kiindha adeega oon diidan wuxuu dhahaa sidii daawo aaba ma siin jirin. marka anigoo qaxinoo aan inta raaci jiraa oo wuxuu rab iga samaysan jiray. marka uurka waxaad qaaday intuu aabbahaa noolaa? ha intuu aabba noolaa. markaad aabbaha muxuu xaaladiisu ku dambeysay markii ninkii aad ka ogolaatay inaad guursato waxaad tihi dawooyin baa la siiyey aabbaha xaaladii aabbaha maxay ku dambeysay? aabba xaaladiisa sida daawo hadday noqoto daawo fiicana la siiyey laakiin waqtiga aabba u dhinta aabba. marka aabba wuu geeriyaadaa ilaahay ha u naxariisto. dabeete adiga maxaa kugu dhacay marka? ani dhibaatooyin badan aan la kulmay dhinaca al-shabaabka soomaaliya. waa tahay familkaaga markaad eegto adeerada ama habaryaraha iyagu ma ogaadeen in aad nin guursatay ciidamada amisom ka tirsan oo ugandhaysa? ha way ogaadeen hooyo iyo walaalahey way maqleen. maxay dareemeen marka? hooyii markaa u sheegay arrintaasaa u sheegay hooyana igama xumaan hooyo waxay ogeed arrinta lacag la-aanta neesta iyo. marka waxay dareemayeen in duruuf markaa jirtay darteed aad u gashay arrintan? waa tahay markaa nimco xaggeed ku umushay marka maxamar baad ku umushay mise waxaad ku umushay kambala? soomaaliya ku umulay. imise jir weeye marka waxaa la ii sheegay inaad dhashay wiilkaaga waa imise sano iminka? wiilkayga wuxuu jiraa sanadii 5 bilood jiraa. waa tahay markaa dee reerkiina waxaad igu tiri soomaaliya joogaan iminka? ha hooyaday walaalahey soomaaliya joogaan aniga falkaas sameeyey darteeda ciqaab loo marsiinooya. iyaga maxaa soo gaaray markaa iyaga maxaa lagu sameeyey? ayaga dhibaatooyin badan oo la kulmeen hadda wiil walaalkii xataa waa la la'aa inay wateen ciidamada al-shabaabka lama yaqaano mid way xirteen wuu u xirnaan jiray iyo hooyo way u xirnaan jirtay qaaka hadda way fiican yihiin. waa tahay marka dhibaatadaasi adigana kugu dhacday faamilkaagana la gaarsiinayo kulley qadarta eebana way ku dhacday laakiin adna sababteedaad lahayd marka maxay kula tahay baad u malaynaysaa markaad dhibaatadaasi eegto faamiligaad gaarsiisay ee madaxaaga ay ku dhacayso ma waxun baad samaysay mise wax wanaagsan baad samaysay? ani mid haddaa fiiriyo wuxunaa sameeyey waalidka iyo hooyada walaalaha iyo hooyada laqa qabsanayo way dhibaysaa mid haddaa fiiriyona wax fiicanaa sameeyey aabe iyo ciddana wax la-aanay ahaayeen marka saasoo ogolaanino. waa tahay adiguna waad ogeyd in ay marxaladda soomaaliya adag tahay ciidamada ajanabiga meesha jooga la xiriirkooduna uu dhibaato badan keenayay marka miisaankaad isi saartay inaad aabbaha badbaadiso oo aad arrinta ninkan ka ogolaato iyo cawaaqibka ka dhalan kara weli ma xisaabtantay mise waxaa markaa kula weynaa xanuunka aabbo? xanuunka aabba ila weynaa. waa hagaag marka reerkiina hooyada markay ogaadeen waxan iyo dhacdadan dhacday ma ku garab istaageen mise waxaad kala kulantay inay kaa hor yimaadaan oo ay ku canaantaan? maya hooyada iyo walaale aadi ii garab istaageen markastana way iisoo duceeyaan qur-aanna way iisoo akriyaan hooyada iyo walaalena way fiicayiin. waa tahay haddii aan ku weydiiyo kolley xamar adiga ogaa ciidamada amisom iyo dadkay daweyn jireen iyo xiriirka ka dhaxeeya ma jireen ma dhici kartaa in dadka qaarkood ay isweydiiyaan inay jireen hablo kaloo sidaada oo kale ah oo ay ciidamada xiriir la lahaayeen? maya ma jirin markaa kasoo tegaayeen ma jirin halaas ma jirin 100% ciidamada amisom way fiicnaa asiga keliya qaladkaas galay dadku way daaweynayeen nabadgelyo iyo daawo bay bixinayeen. marka maxaad dadku u sheegi lahayd si dabcan inkastoo ay dadku isku mid ahayn oo haddaad codkaaga soomaalida u gudbin lahayd maxaad dadku u sheegi lahayd?
أنا أرنت واحد بين أمان وحامل وهلا المنام سومالنا عند قفن أم سومالي أم قفكن هذا قدر كمرة وشرف وعشرف أكره إنه يدعي أرب أبي أبين الله نحرسته ضدك إيه فكر سن إنه قفن أهينا ميه أنا قفن وأسكت أنا عاي قبل قدها أوفي عنا